dugsiga hoose dhexe sare ee yaag musnin loo garan ogyahay alam iskuul academy waxay ka jawaabeen hadalla maalmihii ugu dambeysay baraha bulshada la isla dhexmarayay kuna saabsanaa manhaj ka mid ah manhajyada lagu dhigo iskuulka ugu horeyntiina waxaa halkaasi ka hadashay Shukri Cali oo maamulaha iskuulka Xasan Jaamac oo ka mid ah aasaasayashii iskuulka kana mid ah waalid iyo waliba Xamse Maxamed Muuse oo ah macallimiinta dhigtay iskuulka waana kuwan hadaladoodii bahda Elm School oo isugu yeedhay waalidiinta iskuulka iyo saxaafadaba waxa ay halkan u tuman yihiin in been abuurka suuqa wareegaya ay weedhooda ku haboon ka yiraahdaan maadaama oo warku aad u faafay been abuurna uu yahay iskuulkan waa iskuul sumcad iyo sharaf iyo cisi iyo karaamo ku dhexleh dalkan aan joogno ee Somaliland waa iskuul ay soo dhigteen sida Shaafici uu sheegay arday aad u fara badan kana qalan jabiyeen maantana ay ka tirsan yihiin ardaydaasi kuwa jaamacada jooga kuwa wasaaradda u shaqeeya kuwa hay'adaha u shaqeeya kuwa dawladda u shaqeeya kuwa iskood u shaqeystay intaba macallimiinta aan halkan ku haynay ajaanibta ah ma aha macallimiin u dhashay dalka Kenya oo kaliya waxaa jooga macallimiin muslimiin ah oo dhiga diinta islaamka oo dhiga carabiga oo dhiga maadooyinka intaasaan soo sheegay waxaa jira macallimiin ka yimid wadamada sida Yemen iyo dalkeena Somaliland waxaa jira macallimiinta Kenyaanka ah macallimiin intii ay hawshan ku dhex jireen soo islaamay oo diinta islaamka ee quruxda badan ee sharafka leh ee Ilaahay uu inagu amray inaynu qaadano iyo rasuulkeena Kaleey salaatu wasalaam qaatay waxaan doonayaa halka inaan cadeeyo manhajka iyo syllabuska waxa la yiraahdaa maxay ku kala duwan yihiin manhajku waa arin muxuu ahaa hoggaan ama guide ay wasaaradda waxbarashadu bixiso tusaale ahaan manhajku wuxuu oranayaa ardayga klaaska koowaad dhigtaa waa inuu sanadka markuu dhameeyo awood u leeyahay inuu wax akhri karo waxna qori karo kaasi waa manhajkii dawladda buugga laakiin aan ka dhigayaa syllabuska aan ka dhigayaa waa xirfadda iskuulkay u taalaa inuu u kala xulo buugagta laga dhigaya kuwa ay yihiin iskuulkan halka ardayga yara class 8 ka grade 1 ka ilaa 10 buug buu wax ka dhigtaa xisaabta 3-4 buug buu ka dhigtaa muxuu ahaa ingiriista dhowr buug buu ka dhigtaa waxa science-ka intaas in leeg buu ka dhigtaa hygiene education intaas ka dhigtaa waxa soo dhan loo sameeynaya waa si ilmaha aqoontiisa kor loogu qaado kale waxa isaguna ka hadlay Suldaan Xamse oo ah waalid kana tirsan gudida xumaan reebista iyo wanaag farista ee Somaliland iyo waliba Yaasmin Cabdi Yuusuf oo kamid ah waalid ay dhigtaan awlaadeeda iskuulka waxana kuwan hadaladoodii aniga ah Suldaan Xamse ahna kana mid ah gudida wanaag farista iyo xumaan reebista halkan waxaan ka cadeynayaa iskuulkan maanta fadeexada loo soo jeediyay inaanu anahay qoladii aasaastay ee ku aasaastay 7 caruura maanta halku marayo waa la arkayaa dadka propagandaha wada waa dad ka xumaada uun iskuulkan iyo tayadiisa iyo horumarkiisa caruurtayadu ma dhigtaan baasaboor ma naan dhoofinino baasaboor ajaanib ma hayno waxaanu se ku faraxsanahay oo ku qanacsanahay waddankeega dhexdiisii ayaa waxa ugu timid tacliin standard ula timid diyaan waxna loo dhimin annagii baa waxna loo dhimay ilmihii baa wax loo dhimay ceeb weeyaan waligeeyo TV kama naan hadal imikana waanu gariiraynaa ilaa xalayna waanu ooyini sababta sidaan loogu sameeyay maxay tahay maxaa caruurteeda loo ceebeynaya maxaa annagana loo ceebeynaya ma dad baanu sharciyadii wixii loo keenay oo dhammaan ku jecjecno ka tuuray sababtaan uga tuurayna wadankooda ku rabaysmaan bayna ku goraan hadaanu doonayna caruurteeda in caruuraha noqdaan dee waanu geysan leh Yaasmin Muuse on Cable TV Hargeysa magacaygu waa Suldaan magacaygu waa Seeraar isku si ayaan u hadalaa isku sina waanu libisanaa isku midna waanu nahay anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma sameyn karayo warmaahay run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxad mar hore igu sheegi weyday fikir hadal oo hadalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Somaliland ama bishii oo dhan ku hadal $5 oo kaliya Samtel shirkadda dadweynaha